Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan soo gelinayaa cuntooyinka faa'iidada u leh hooyada marka uurka leedahay. Kalluunku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka aad faa'iidada uga helaan. Weliba nooca salmonka, midka gaduudan, noocyo kala jiraan oo kalluunka badan yihiin sida xoolaha kale u badan yihiinba. Laakiin midka kalarkan oo kale ee gaduudka xiga waa midka ugu fiican bay dhaan dhaqaatiirta. Insha Allah maanta waxaan soo gadanay laba nooc. Noocan waxa waa mid oo wixii lagu talagalay la soo mariyay. Marka asagoo diyaarsan soo gataa saas oo ku soo gataa. Kan kalena wuxuu ahaa mid sidiisa. Marka waan sameysanaynaa insha Allah. Faa'iidooyinka laga helo waxaa ka mid ah omega 3 oo u wanaagsan hooyada uurka leh iyo weliba babyga. Insha Allah sidoo kale borotiino badan iyo wuxuu leeyahay fiitamiino aan soo koobi karin. Marka wuxuu kale aad u wanaagsan yahay wadnaha qofka bini'aadamka hadduu uur lahayn iyo haddii kaleba. Marka insha Allah waan sameysanaynaa. Hadda soo furay waxaa ku jira malabyo iyo xawaajiyaal iyo waxyaabo macmacaan isku soo dareen. Marka malab saas u badan waa wax yar. Laakiin asoo waxba lehna soo gadan kartaa haddii rabto. Inta badan waxaan jeclaa markuu sidaan u sameysan yahay 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo dabka u gaabinaa insha Allah ovenkan gelinayaa. Wixiisana korkaan uga darayaa insha Allah waxa dhacaankii wuxuu watay. Hadhow gadaal waxaa rabaa dii Ilaahay idmo inaan ugu daro chips. Laakiin chips-ka ma daqiiqo 30 daqiiqo u baahnaan marka adiga isla 10 daqiiqo meelahaas ka dhiman. Insha Allah waan dib uga dari doonaa. Marka sidiisa hadda ku gelinayaa. Insha Allah isla soconaynaa. Dabkan daaranayaa wax yar insha Allah waxa sidoo kale sameysanaynaa cabitaan. Cabitaankana isagana aad buu fiican yahay. Markastuu fiican yahay laakiin especially qofka oo uurka aad ugu sii fiican yahay. Wuxuu ka sameysan yahay fruito badan oo isku soo daray sida canabka iyo kuwa kale meesha ku sawiran magacooda wax lagu dhama garnaa. Marka waxa sabay maagan ku qasay ma jecel inaan biyo ku qaso cabitaankayga anku qasanaa ilaa markiis. Waxaan sameeyaa wax yar cabitaan wixii marka cabitaan iyala korka uga sii daraa biyo ahaan uga dhigaan. Inkastoo dadka qaar yogurt ay ku qastaan, qaar caano ku qastaan, qaar biyo cad. Laakiin qof kasta choice leeyahay aniga cabitaanadan ku qasaa. Cabitaanka wuu ku macaaninayaa Soomaaliya. Insha Allah. Hadda waa shiidinaynaa wax yar ka dibna. Bariisaan karsanaa haddii Ilaahay idmo. Insha Allah bariiska soo gelinayaa laakiin 10 qaadanaa marka ma rabo inaan wax kasta duubo. Intaan ka gaarsiin karo insha Allah baan duubayaa. Cabitaankeena shiidanaynaa. Sidiisa ku cabaanay wax ku dardaro baraf iyo dadka qaar baraf ay ku shiitaan. Laakiin miraha kale miraha pumpkin seed mirihiisa kale lagu shiitaa iyo waxyaabaha fiitamiinada leh. Iyo chai seed ko kale ee. Marka anu wax wasaas ku dardaro. Hadaan qudaarta aad u jeclahay. Insha Allah qadadina taas chips-ka gadaal uga daray iyo wax yar bariis iyo fish-ka. Bariis waxa ka gadan kalar waaye kalarka xarbina soo gato midka casaanka ah. Ilaa markiis ka waayay markii midka gudana iska soo gato chips-ta iyo bariiska san ku sameeyay. Markii fish-ka saas ku soo baxay. Kii kale bacda ku jira asaga waxna marsaneen waa kana 3 bari kadib waaye marka fish-ka badan ma fiicna marka uurka leedahay. Hal maalin waxa soo dhanaa wada karsada ma fiicna. Marka waan kala hal mar soo wada adeegtay laakiin waa kala dhiga Soomaa. Kan waxa u dhigtay 2 bari kadib. Marka labadooda way kan u ka raqiisana maadaama waxa ma marsaneen oo kale. Dhigashadiisuna way ka fududahay maadaama uu plain yahay sidiisa yahay.
wax uusan lahayn waxyaabo ku dhagahayo kale. marka asagaan dib u dhigta insha Allah. Hadda batar ayaan kusoo shubanay, batarkan soo shiid waxyaa soo kulaynaya ma lii jira soo shiidaya soo kulaynaya insha Allah. korka ka marnaa marka korka bariyo wax yar cusbaan korka uga daadinaya, hadhow fridge-kan gelinaa 15 daqiiqo kadib insha Allah. markaan soo bixin cusbada korka uga daadinaya xawaajiga, laakiin hadda sidiisan fridge ku gelinaya. waxaa la wax yar inuu dhalan yeesho maadaama batarku u dhanaan yahay. marka insha Allah waxaa waaye wax yar oo akin batarka bataso ma marka dhalaaliyo marka iskaga wada daraya soo xoogaa macaan uu noqdo insha Allah. xawaajiga ku darsadaan, laakiin inkastoo aniga aan waxba ma jecel xawaajiyash badan kii hore wax badan la sameeyo. kan waa kan bariga ka qaadanayna. kan waxa waaye broccoli-ga sidoo kale faa'iido badan wuxuu leeyahay dadka dhan, laakiin especially hooyada uurka leh aad ugu fiican yahay. aniga inta badan ma cuno wala markan uurka leeyahay bisan soo gataa, laakiin inta badan ilmahan marban qadada ugu sameystaayo kale especially ka cuntada u shiidayo kale, laakiin aniga uma soo gato insha Allah. sidoo kale kiniinigan aan qaato xitaa fishku ku jira oo maxaa la kama marna marka soo kiniini xitaa waa qaataa. marka kiniiniyaashan waxa waaye kuwa la qaato markaad uurka leedahay. laba nooc marka ku jiraan, hal nooc ma ahan. nooc waa noocan oo kiniiniga caadiga ah, waxa kale ku jiro noocan asagana nooca fish oo waxa waaye omega 3 capsule. marka labadooda isku wada jiraan waxa ku imaada 28 xabo camal ah. marka kan hadda waa dhamaad baa dhameystay. marka dan xitaa fish ku cuneynin kiniinigiisa cunaa oo ii sheeg kiniiniyaasha marka la soo gadanayo loogu talagalayo gabadha uurka leh inay cunto. waxaa jira mid asoo kali ah oo aan fish ku jiro ama fish wax yar kaga jiro, iyo mid waxaa jira fish xoogaa fiican kaga jiro. marka kan aniga inta badan kan oo kaliya mid ku jiro ma soo gato, waxaa ku soo darsadaa midka oo labadaba ay ku jiraan sida kan iyo fishka. marka waxa sameynaa isku maraacina xabad kana ka cunaysa iyo xabad kan ah, marka labadii faa'iido waa helaysaa insha Allah. hadda kan waa boxka ugu horeeyay 28 xabo kaliya ah. waxaan rajeynayaa inaan soo gato mid kale hadii Ilaahay idmo. omega 3 pregnant-ka marka uu ka qaalisan laazim kaas waxa waaye fish oil-ka ku jira. masha Allah karton ka soo gadan leedo adoo hal xabo ka soo gato camal u dhiganta Soomaa. fitamiino badan oo ku jira sida vitamin D iyo waxyaabahaas oo dhan. qof kasta choice buu leeyahay, laakiin aniga marka soo gadanaa wax ku soo darsadaa oo wax isku soo gataa midka oo caadiga iyo midka fish oil-kiisa wata. insha Allah boxka dambe soo gadanaa inaan soo shirkarin dana. hadda kan uu dhamaaday waxba kuma harinba. waxaa ka hartay kan oo ku jirto 7 xabo hal isbuuc ka hareen. kan intiisa ku jirta kan kalena ku jirta labadan waa ka dhamaadeen. marka meesha hal mar asla tuuraanin oo intaan dhameystay. marka fish karaga markaas omega 3 ka maqna diet-kayga markasta oo ku daraa waxay u fiican yahay sida indhaha iyo maskaxda baby-ga kale markay development sameynayaan. hooyadana faa'iido ka helaysaa, cunugana faa'iido ka helaysaa, labadaba marka faa'iido ka helayaan Soomaa. saas u qaata. sida loo qaatay wax kasta way ku qoran tahay insha Allah qofka soo gadanaya. faa'iidadiisa halkaas ku wada qoran tahay. waxa lagu xutara waxa waaye vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C iyo vitamin B1, B12, B3, B6, folic acid wax dhan ku jiraan ilaa laga soo gaarayo copper iyo zinc iyo iron dhamaan oo ka helaysaa. marka waxa wax vitamin u baahnaa oo dhan waqtiga uurka oo isku soo daro waa camal. marka insha Allah noocyo badan way jiraan insha Allah. asbuuc kadib ku soo gatana way la soo gelin doonaa. saaro idinku ku sheegay waa ku mahadsantiin insha Allah channelka subscribe saaro.
like iyo sharetan insha Allah ku qabo video badan insha Allah naga fisha hadii Ilaahay idmo inkastoo hadda magaalada iska biisatahay coronavirus waxaas iska jiraan laakiin insha Allah inaan soo dadaalno oo isku daynaa oo asbuuciiba at least ugu yaraan hal ama laba video soo gelina inkastoo waqti iska ciriiriya laakiin ku khasbana Soomaaliya marka insha Allah wixii kale oo su'aalaha qabtaan comment noogu reebi kartaan lambarkayga Facebook YouTube-kaygana waa ka helaysaan haddii wax oo su'aalo personal ah qabto insha Allah soo weydiin kartaan inta marka laga soo tago khayr baa idin rajeynayaa caafimaad qab insha Allah